Giriigga iyo Turkiga ayaa dagaal waxa ay kula jiraan sidii ay u damin lahaayeen dab ka kacay keymaha lama-degaanka ah. Labadan dal ee deriska ah ayaana soo maray xaalado noocan ah. Kuleyl daran ayaana dhowrkii sano ee la soo dhaafay sababay gubashada keymaha. Dalka Giriigga, dab ayaa ka kacay magaalo ka agdhow jasiirad ku taalla Kos. Dalxiisayaasha ayaana ku khasbanaaday in ay gabaad ka dhigtaan garoon loo diyaariyey kaas oo ka fog goobaha gubanaya. Ku-xigeenka duqa degmada Dionysos oo arrimahan ka hadlaya ayaa yidhi, "Wakhtigan waxa aan si dhab ah ula dagaalamaynaa xaaladda taagan, innaga oo isku dayayna in aan si buuxda u xakamayno." Dhowr jeer oo isxigxigay waxaa Giriigga ka kacay dab aad u baaxad weyn oo meelo kala duwan ah. Laba goobood oo ka mid ah meelaha dabku qabsaday waxa ay ka ag dhowaayeen caasimadda Athens, dalka Turkiga, iyana waxaa ka kacay dab ugu yaraan 9 magaalo. Agaasimaha dhirta ee gobolka Mugla oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay la dagaalameen dab asbuuc ka hor ka kacay keymaha. Ra'iisul wasaaraha Giriigga ayaa sheegay in hawshan ay u baahan tahay isku dubarid iyo sidoo kale in si dhab ah looga shaqeeyo, waxaana carabka ku dhuftay in waqti adag oo kuleyl iyo gubasho keymo ah laga yaabo in ay soo wajahnaan karaan.